Inta badan lamaanaha guriga wada jooga waxaa dhex mara khilaaf ka dhasha danayn la'aanta iyo inaanay ixtiraamkii ay u baahnayd aanay ku haysan lamaanahooda. Arrintaasi oo ay ka dhashaan silsilado mushkilad ah iyo dagaallo aan dhammaad lahayn. Halka danayn yar oo aad u samayso haweenka ee arrintaasi wax weyn ka beddelayso. Telefoon yar oo lamaantaada u dirto oo aad ku hubinayso xaaladdeeda maalintii oo dhan waxa ay ka dhigan tahay mid farxad ku abuuraysa, maadaama ay niyaddeedu ku degayso ayna haysato lamaane ka welwelaya, diyaarna u ah inuu daryeelo. Haddaba maanta waxaan idiin soo jeedin doonaa dhowr talo oo kuu suurtagelinaya in lamaanahaaga uu daryeel badan ku siiyo. Waa sida uu ku talinayo khabiirka dhanka qoyska ee Marwa Axmed. Dareensii in mushkiladu ay jirto. Haddii lamaanahaagu uu ka mid yahay ragga aan dumarka danayn, dhaqanka aad kula dhaqanto wax badan ka beddel. Si uu u dareemo in dhibaata ay jirto, arrintaasi waxa ay ku qasbaysaa inuu isbeddelo si adkaan leh kula dhaqan. Si uu u dareemo in isbeddel weyn uu jiro oo dhanka xiriirka ah, arrintaasi waxa ay ku qasbi doontaa inuu isbeddelo sida uu kula dhaqmo ula dhaqan. Marka hore ku bilow inaadan telefoonka ka qaban. Arrintaasi waxa ay dareensiin doontaa in xiriirku uu xun yahay. Markii isagoo arrintaasi ka xanaaqsan uu kula hadlo, u sheeg in danayn la'aanta aad ku hayso ay ku keentay inaadan muhiimad gaar ah siin telefoonkiisa. Arrintaasi waxa ay ku keeni doontaa inuu dib isugu laabto dhaqankiisana uu wax ka beddelo. Noloshaada gaarka ah ku noolow. Lamaanahaaga ha dareensiin in noloshaada oo dhan ay isaga ku xiran tahay, xitaa haddii ay noloshaada oo dhan ay isaga ku xiran tahay. Marka uu dareemo inaad isaga u baahan tahay, waxa uu sii laban doonaa danayn la'aantiisa, maadaama uu og yahay inaad ku tiirsan tahay marnaba aadan ka maarmin, xitaa haddii uu dhankaaga ka gaabiyo. Dareensii in qofka ku khasaaraya uu isaga yahay. Ha dareensiin lamaanahaaga inaad murugaysan tahay oo dareen la'aantiisa aad ka danqanayso. Ragga oo dhan isku mid ma aha, oo qaar badan oo ka mid ah iskuma qajilaan. Marka la dareensiiyo in lamaanahooda uu dayacan yahay, dareensii inuu yahay qofka xiriirka haddii uu xumaado ku dhibaatoonaya inuu isaga yahay, adiguna noloshaada caadiga ah aad sii wadan karto. Cabdiweli Qorane.